السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانت أدبين السلام يا عشر كني ما أنت وحنا كقاعدنا هنا. أنت عشر كبلابين الله يكسرته سوى ضد بدنو جارو عرضي بدنو جارو باهي قبتها مكان فينا وحنا نتشعلنا وح وناكسن. كوسو بير كانال كان سي بلادو لا سocto barnaamijyada dambe aan soo gelin doono haduu rabo ogolaado kusoo dhawaada cashirkeena maanta insha Allah waa maalin kale iyo cashirkeena waan maanta halkan ka qaadi doono insha Allah taala hore wuxuu noogu joogay macrolides marka waxa lagu daweyn jiray functionska marka inta badan waxaan oran jirnay mechanism-keega marka hore wayniga uu soo sharaxadan uu soo galay maanta waxa ka bilaabaynaa therapeutic uses-keega marka therapeutic uses-keega waxa ugu horeeya inuu isticmaalo macrolideska waxa kamid ah pneumonia-di qofkii oofta qabay la siiyo calamity waa infection calamity waa infection ay sababto bacteria la yiraahdo Chlamydia trachomatis marka oo infection inta badan genetic area ku dhaca marka inta badanna waa sexual ama lagu kala qaado sexual transmitted disease marka waxaan ku xusin doonaa diphtheria-duna Soomaalihan waxaan naqaanaa gowracada naqaanaa inta badanna waa bacteria ay sababto bacteria oo inta badan intii toxin bay soo diisa toxinta markay soo diiso waxay hogaamisaa toxintaasi in breathing qofku ku adkaado inuu neefsado qofku deena marka dambana heart failure ku dhaco ama wadnuhu istaagaba marka dambana marka oxygen aan meesha ka dhaco marka systemkaasi ay saameynaysaa marka dawooyinka baa ayaa effectiveness ah inta badan waxaan soo qaadanaynaa haddana pertussiska oo aynu naqaano pertussiska women cup waxa weeyaan waa xiqdheerta waxa sababa waxaynu naqaano ama bacteria-da aynu naqaano barashadda bacteria waxay sababtaa inuu iyaduna adkaato neefsashadu ama inay respiratory-ga ama habdhiska neefsashada ay weerartaa H. pylori baa ku xigta Helicobacter pylori ama bacteria-da oo inta badan ay naqaano inay keento gastritis ama gastric waxay naqaano dosage-ka ay ku timaado dawadan ama dawooyinkan aan hadda ku soo jirnay azithromycin waxay ku timaadaa bioral markaynu sheegno bioral baynu soo qabsanay 250 ilaa 500 mg marka borderka ku imanaysa 500 mg bay ku imanaysaa border for injection markay ku imanaysa 500 mg bay ku imanaysaa erythromycin iyaduna bioral waxay ku timaadaa oo inta badan waa lagu heli karaa kuwa kalena laakiin inta badan waxay ku caadahay in bioral lagu helo 250 ilaa 500 mg erythromycin iyaduna waxay ku timaadaa bioral 250 ilaa 500 mg intana waxa loo isticmaalaa dosage-yadan waxa loo isticmaalaa waa inagii soo sheegnay unwanted effect-ga ama side effect-ga ay leedahay dawooyinkan leeyihiin nausea in qofku yalaaligu dareemo vomiting effect inuu saameynta yani xunqaaca ay ku saameeyaan hypersensitivity yani inuu qofku xasaasiyad yeesho hepatitis jaundice yani qofku inuu hepatitis-ka waxa la yiraahdo infectionska ku dhaca yani ama ku dhaca liver-ka jaundice-kana calaamadaha inta badan la yiraahdo marka in calaamado qofkii lagu arko hepatitis jaundice-ki in qofku madax xanuun dareemo iyo halbaan waxa la yiraahdaa inuu qofku maxay yeesho laab dilaac baynu naqaano redden soul villaging baynu name-keega oranaa waa ku ugu awooda badan leh marka la joogo anaerobiska yani ama ku aan bacteria-da aan u baahnayn maxay oxygen-ta anaerobiska waxa la yiraahdaa waxaana inta badan laga absorbeeyaa marka waliba ay ku fiican yihiin markay absorb yani waxa la yiraahdaa nuugitaanka waxay ku fiican yihiin in oralka laga qaato maternal salku waxa lagu metabolize kareeyaa oo laga saaraa inta badan urine-ta wixii metabolize iyo wixii excretion waxa laga saaraya urine-ta
mechanism of action ka waxa kamid ah in yani inhibitories-ka ay xidho nucleic acid-ka markay xidhayso waxa jira pyruvate wax la yiraahdo oo enzyme ay wax ka bedelayaan. pyruvate enzyme-ka markay wax ka bedelaan waxa dhacaysa wax la yiraahdo reduction ka dhacaya ayaa wuxuu soo saaraya toxin-taasina waxay wax ka bedelaysaa maxay mutation-kii ama qaybqaybsankii uu bacteria-da sameeyay. marka antimicrobial activities-ku saasay saameyn uga qayb qaadanayaan ama production inuu soo saaraan inay ka mas'uul yihiin inay ka hortagaan activities-ka uu qabanayo. bal hadda aynu soo yar qaadano metronidazole-ku marka hore waa dawo aynu naqaano inay tahay drug ama dawo aan active ahayn. markaynu cunno ayaa waxa dhacaysa wax la reactive decay baa lagu sameeyaa ama waxa loo bedelayo oo bacteria-du u bedelaysa iyadoo adeegsanaysa enzyme la yiraahdo pyruvate-kaas wuxuu bedelayaa toxicity badan ayuu ka dhigayaa. toxicity markuu ka dhigo DNA-da uu faragelinaya. DNA-da markuu faragelinayna bacteria-da waxa ku dhacaya ama dhamaantood meesha ka baxdo. fahamyada guud aan ka siinayo sida balan u soo dhaweyna mechanism-ka waxa loo isticmaalaa ambiyaasiska xundurta jadiyasis ama jikaardidan biyada PID-da bulky inflammatory diseases-ka anaerobic bacteria infection-kana waa loo isticmaali karaa kuwa aan bacteria-da aan u baahnayn oxygen-ta sida dental infections-ka kuwa keena. dosage-ka ay ku timaado waa by oral 250 ilaa 500 ay milligram ay ku timaado. markaan sheegno biyahan ama infusion ahaan waxay ku timaado 500 milligram. side effect-ga ay leedahay ama unwanted effect-ga iyo waxaan nagu ka sugeynaa waxyaabaha ay leedahay dawadan wax kamid ah in madaxu qofka xanuuno, nausea inuu qofku yalaaliga yeesho, inuu vomiting yeesho, yani inuu xunqaac yeesho, appetite loss, metabolic test, yani inuu colon waxa mararka qaarkood ama taydku ama qofku waxba cuni waayaba. Clarithromycin waa drug waa dawada daloolisa yani in badan oo kamid ah tissue-geena marka laga reebo brain and cerebral fluids-ka yani labada meelood marka laga reebo inta kale way daloolisaa dawadani kale waxay daloolisaa abscesses-kuna waa in bas yani jirkeena meel kamid ah tissue-geena meel kamid bas ku ururo taana way daloolisaa. Clarithromycin metabolism-ka waxa lagu sameeyaa liver-ka iyo in active metabolism laga saaro yani active metabolism-ka lagu sameeyo marka laga saaray bile and urine. mechanism of action-ka ay leedahay dawadani waxa kamid ah in protein synthesis-ka ay farageliso waliba ay formation-ka marka la sameeyo initiation complex-ka inay saameyn ku yeelato dawadani. inta badan wax loo isticmaala aikin yani findoobkan ama dadkan markay qaangaaraan ama buursiga xaaladda buursiga ku jira dadka finanka ka soo baxa aikin la yiraahdo ama findoobka. dental infection-ka loo isticmaala oo in yani infections-ka ku dhacaya ilkaha, pneumonia-dii iyadana bone marrow infection-kiina waa loo isticmaalayaa in infection ku dhaco laftii. female genital infections-ka waa loo isticmaalaa wixii genital area-da waliba dumarka yani infections-ka ku dhaca waa loo isticmaali karaa. dosage form-ka ay ku imanayso waxa kamid ah oral-ka waxna 75 150 300 milligram oo capsule ah capsule bayna soo qaabsanay 75 milligram 5 for solution yani marka intermuscular-ka sheegino solution-ka intaas ay ku imanaysaa. parenteralka waxay ku imanaysaa marka ama dawadaynu ku siino qofka waxa la yiraahdo 150 milligram. marka parenteralka ama aynu sheegino yani qofka lagu mudayo 150 milligram bay ku imanaysaa. unwanted effect-ga ama waxyaabaha inaan ka doonayn dawada ay yani unwanted effect-ga waxa la side effect-ga ay leedahay dawadani wax kamid ah nausea yalaaliga yeesho, skin rash lagu arko qofka, in qofka xataa mararka qaarkood caqabad ka noqoto liver infections inuu ku dhaco ama impairing liver infection inuu dhaco, severe diarrhea inuu qofku ku yeesho ama inuu khatar yani shuban khatar yeesho. vancomycin iyadu waxa la yiraahdaa waa poorly absorbable for intestinal tract. waxa la yiraahdaa vancomycin waa kuwa ugu xun ee laga nuugo yani ama ugu caajsan ee laga nuugo intestinalka ama kuwa aan inta badan laga nuugin caqabad ku noqoto in laga nuugo intestinalka marka oralka laga qaato.
laakiin inta badan waxa la yidhaahdaa waxaa laga siiyaa qofka oral treatment antibiotic association diarrhea marka la sheegayo yani marka qofkaasi hayo diarrhea inta badan waa la siiyaa laakiin absorbkeyga ama nuugitaankeyga ayaa adkaata parenteral dosiska mise b administration IV marka waxaa la door biraa in qofka lagu mudo oo IV-ga laga siiyo 90% of drug excreted by kidneys boqolkiiba 90 kidneyga laga saaraa laakiin haddii jiro renal insufficiency haddii jiro waxa laga yaabaa inay dhacdo accumulation inay ku dhaco dawadu yani halka ay ku ururto oo khatar renalku inaga qabo mechanism of actionka uu leedahay dawadani wax kamid ah inhibiting cell wall synthesis inay cell wallka xidho waxa loo isticmaalaa zero membrane waxa la yiraahdaa marka uu tusaalahan villus membrane samaysmo zero marka villus membrane samayso sida isha oo kale inuu yani ku samaysmo yani zero endocarditis indhaha yani xagga inta ugu yani layerka ugu hooseeya wadnaha inuu infection ku dhaco mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa shadidka prophylaxis yani inuu qofka la siiyo intaanu qalinka gelin si uu prophylaxis u noqdo ka hortagayaal dosage effective baa jira oral marka oral laga qaaday 250 ilaa 200 iyo 200 iyo oralka waxa jira 125 ilaa 250 mg weeyaan marka solutionka la sheegayna waxa weeyaan 250 ay ku yimaada parenteralka mararka qaarkood waxa ku iman kartaa 0.5 1 to 5 ilaa 10 gram bay ku iman kartaa oo IV injection ah side effects-ka leedahay waxa kamid ah NV yeelato NV-guna waa nausea iyo vomiting yeesho hypertension inuu yani dhiigga cadaadiska dhiigga hoos u dhaco jilis inuu qofku qarqaryoodo mararka qaarkoodna rash inuu yeesho finan yaro kasoo baxa back pain inuu yeesho dhabar xanuun iyo mararka qaarkoodna headache inuu yeesho oo qofku madax xanuun waxaanu qaadanaynaa calorofenicol waa bacteriostatic ama waa kuwii bacteriyada faragelinayay inay samaysanto wixii la oran jiray protein synthesis wala broad spectrum antibiotics ku jira waxaana inta badan lagu daweeyaa wax la yiraahdo aerobic iyo anaerobic gram positive and gram negative organism kuwa aan u baahnayn oxygen iyo kuwa u baahan bacteriyada u baahan oxygen labadaba effectiveness bay ku tahay ama si fiican bay ugu shaqeysaa calorofenicol hadaba waxa jira waxa marka drug si dhakhso leh oo dhameystiran baa loo absorb kareeya waxaa laga saaraa urinta in ka jaro oo yani small amount waxa laga saaraa excrete in the bile and feces labada bile-ka iyo feces-ka ayaa la raaciyaa mechanism of action-ka ay ka kooban tahay mechanism-ka halka ay qabsanayso dawooyinkan calorofenicol-ka ama calorofenicol-ku waxa weeyaan horta waa it's the potent inhibitor microbial protein synthesis waa ku ugu xoogan ama ku aynu oran karno maanta inhibitors yani inhibitors microorganisms-ka waliba bacteriyada waa ku ugu fiican waliba marka la sheegay protein synthesis-ka maxaa yeelay waxay leedahay potential toxicity bacteriyada oo resistant waliba resistance-ka ah marka waxa awood u leedahay inay wax ka bedesho calorofenicol marka aan isticmaalo abfinicoliskan soo qaadan abfinicolisku waxay xidhaan ribosomska labada qaybood oo qaybin jiray qaybta sare la dhaaf 50 subunits marka xidhaan oo halkaas oo peptides ay blockage ku sameynayaan marka dambe waxa dhacaysa elongation inuu istaago deena marka dambe ay bacteriostatic la sameyn lahaa ama bacteriyadii ay ka qayb qaataan bacteriostatic inay xidhaan marka waxa ku dhex jira calorofenicol-kii oo ahaa groupka ugu weyn clinical uses-ka inuu isticmaalo waxa kamid ah serious infectionada ama caabuqyada khatarta ah meningitis-ka meningitis-ka ama layeriska maskaxda ku dhaca typhoid-ka yani typhoid-ka Soomaaliga ku noqon kara typhoid ocular infectionska ku dhaca ayga
oo dhanna waa nu isticmaali karnaa. Dosage drugska ama dosage ama xaddiga 250 milligram capsule baynu ku heli karnaa, 100 milligram powder for injection na waynu ku heli karnaa. Side effects ay leedahay waxaa ka mid ah headache, madax xanuun, rash inuu qofku yeesho rashes yani finan yaryar, plastic anemia dhacdo in dhiiggii la soo saari waayo ama in yani qofka anemia ku dhacdo, waana qayb ka mid ah types of plastic anemia. Treatment of tuberculosis, daweynta ay tuberculosis-ka ay daweynayno halkaas aynu kasii qaadi doonaa cashirkeena kale hadduu rabbi ogolaado. Ha iloobina inaad like saartaan, subscribe tanayna saartaan si aad ula socotaan barnaamijyada dambe ee la soo gelinayo ku saabsan insha Allah taala medicalka hadduu rabbi ogolaado.